qalad maadaama ninkan adiga shalay sharuud la'aan aad guursatay maanta keen hadaa dhahdid waa igu soo jeesatay miyaa ku dhahaa dabcan meel oo noqotidna ma qabtid hada guri ayaa leedahay waad ku asturan tahay albaabkaagu wuu ku xiran yahay marka guriga ku asturno inuu ilaahay xaqaaga ka siiyana ilaahay ha ku kaso waxaaga iska karso guriga iska joog mustaqbalkaaga ka fikir kulli hada way guursatay guri xalaal ku jirta ilaahay u barakeeyo awlaad khayr qabtana Allah siiyo ninkeedana Allah u soo jeediyo nin wanaagsan Allah uga dhigo oo jecel oo naagaha uu qabo la simo oo xaqeeda siiyo oo daafaco oo garabkeeda noqdo maadaama uu ka weyn yahay uga soo baxo booskii aabaheed booskii walaalkeed booskii ninkeeda ilmaha ay dhali doontaan ilmo ilaahay khayr qabo oo garabsato. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا لهيك شرفت المربع جوكتين سوء دواذا ومركل فيديو كالأو عسب مركور أنكو صلينو نبينا صوبا عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوء دواذا ولا لهيك شرفت لما أنتو حائذي وذاقصو انتهى مركور أقودو قلنا قصدينا أدي أيقو عسب تاي سبسكرايب إيسار فيديو دوك عجبيني لايك نوصار ليه قلنا أي نوت هاي سوء دواذا ولا لهيك شرفت له maanta waxaa idin wada qis ay ila soo wadaagtay gabar Soomaaliyeed oo ku nool wadankeeni Soomaaliya gobolada Soomaaliya gobol kamid ah dabcan Muhammad magaalada Muqdisho sheeka ma ka wadi sheekooyinkay maadaama ay u badnaayeen magaalada Muqdisho marka gabadhan dhibaato badan ayay soo martay ilaa hadirtaan way ku jirtaa marka waxay nooga baahan tahay talo iyo dhiirigelin insha Allah wixii Ilaahay uu na garsiiyo horta marka inta ugu gudagalin qisadeena asxaabteyda dad badan waxa jira qisooyin ii haay oo commentiga ku soo qoro commentigana waa meel public ah jid lisku salaam oo kale inta kiisi socdo iyo kiisoo socdo meeshas marka qofka qisadiisa iyo xisirtiisa ah kuma soo qori karo marka dad badan ay weydiiyeen takaal soo xiriira iyo dad badan oo meeshas ku soo qoreen marka hadda ka bacd meeshas ma igu soo qoraysiin waxa igala soo xiriirsiin Facebook-gayga Cana Maxamed iyo Instagram-kayga Cana Maxamed meeshas ka wada xiriirina insha Allah wixii tala ah wixii qiso ah إن شاء الله ما يسوي كرتين قبل أي ويديان صور كوسا على فيسبوك محاوي صور كسا أوجدين أي إيسارا إن شاء الله حق يجلسوا حرير هدي إلهي وقتمه مركا قبل أنا وحيد هذي أنا جمالنتي عن مركي عن الشيء أنا جو السنة جرو هرت هويدي يا به أي وحيد تري كلا تجي مركي كلا تجين هويدي سنة مركي عن جري وحيد يقول تورتي أبهي أي إيسيسي turta isiisay isku mid leeyahay marka waxaan rabaa inaan idin akhriyo qisadeedii ay commentiga igu soo qortay markii dambe tan waxay ii soo qortay abaayo qisada ma aragtay waa tirtiri lahay qisada markii dambe waa ana waxay tiraahday qisada aragtay tirtir ay tiri marka qisadii waa tirtiri laakiin waa sawirtay meeshan ka sawirtay waxaan rabaa markaad inaan idin akhriyo إن شاء الله طلعت أسوسين دونتيني مد مستقبل كده حكا دكتو كبد الشو الله حكا دكتو وحيت تري ولا أني جبا وحان أهي جبر صوماليات وحان أها جبر هير أو هو يدد يو أبهد كالتجان هدي عن كو كالتجان كدب وحان كوسا كوري نول الآد وأذك إلا إجردلو كدب مركي عن جاري ده أفر إطوان كسانو إلا أنت سحيلا نولد هويديد لدرجلاي أفلقادينا يوحل بالقسميناي كدب إلا يد هذا أفر إطوان كسانو وحان أقيمت هويدي هويو مالهن قلبي إجعل قبا وي هبارتا مركا قار وي قرعدا dadka waxay ku dhaxdaa way idibtay kadib markii aan weynaaday ilaa iyo 24 sano waan fikiray waxaan jeclaaday oo iska jeclaaday ku fikirtay in aanin iska guursado sidoo kadib waxaan bilaabay in aan anigu in ay iyada in aan anigu la hadlo ragga oon iraahdo iguurso waxaan rabay in aan ka baxo habaarka iyo hawsha guriga oo aniga mar walba aan la iga caawin jirin iyo cay iyo afxumo joogto ah waxaan garanayaa guriga iyaga sanad gurigoodeed markii ay sanad joogtay ka wadaa saskooda amayna sanad anigu
ooya anigu waxaan ku ooyaa in aan galo suuliga musqusha dhexdeeda ama xamaamka qof walba u yaqaano ay ku oo jirtay maxaa yeelay kama tagi karo oo waa wali waalidnimadii xaq dhoreysaa in waa waalidkii i dhalay markii aan yaraa waan iska baxsan jiray laakiin diinta ayaan bartay waxaan ka baqayaa inaan ka tago kadibna ilaahay ii caroodo kadib caruur caasiyin ah dhalo waxaan sameeyay in aan nin 2 reer leh aan la sheekaysto oo ilaa 50 jir ah dabcan iidan 24 sano ay jirtaa ilaa 50 jir ah kadib wax shuruudda kuma xirin wax kasta oo isaga dan u ah ayaan u raacay wuxuu igu yiri waan ku qarinayaa markay howlo kale ayaan wataa wuxuu uga faa'iideystay gabadh inay cidla tahay gabadh inay muxuu ahay gabadha marka horta waalidkeed sharfaan oo gurigeeda lagu sharfo oo muxuu ahay loo naxariisto horta guurkuma degdegto in ay gabadhaas nin ka weyn oo dhali karo iyadoo wax shuruud ah ku xirin iyadoo wax xaq aan ka qaadanin haddana ku fakarto inay isku tuurto si cadaabka ku jirto cadaab waa kii aakhire dhibka ay ku jirto si uga baxdo laakiin marka adiga nin guurstid oo istiraahid dhibka aad ku jirto uga bax uu qofkan uu ogyahay inaad dhib ku jirtid badanaa dadka intaas gabdhaha way uga faa'iideystaan kadib nin 2 reer la haddane haddii xataa wiil dhalinyar uu ku ahaan lahay ood nolosha isla wadaagtiin dhulka xataa isla jiifatiin biyo cad aad ku qadaysiin adiga haddaad wax kala haysanin xataa noloshadana aad muxuu ahay kasoo bilowdiin 0 ka fiicnaan lahayd laakiin macno male waa dhacday taasna waxaa u sabab ah waalidka ku dhalay oo heerkas ku gaarsiiyey wuxuu yiri howlo kale ayaan wataa waa ku qarinayaa ayaan ku raacay wuxuu igu yiri howlo kale ayaan wataa waan ku qarinayaa markay ii dhammaadaan howlaha si aan reerkayga ugu ku sheego reerkayga markaas kadib aan ku baraa aniga waxaan rabay ama aan ahaa hadafkaygu in aan ka tago noloshan adag oo aan iskaga tago hooyo aniga oo aan cararin ninkayga hadda wuxuu i dejiyay magaalada way soo qortay laakiin ma sheegayay adhoodi ma rabi muxuu ahaa dadka qaar inay iga caroodaan magaalada marar buu ii yimaadaa man waayo lama oga in reer wixii aan kari waay macleesh waa ka boodaa lama oga in reer u degan yahay magaalada wax uu ka baqayaa haddii uu yimaado mar walba in ay ka shakiyaan xaasaskiisa tanba xaas waay xaqna way leedahay in ilaahay laga cabsadana way fiican tahay wuu uga faa'iideystay daruufta ku hela maskiinta reerkaygu mar walba waxay i dhahaan ninkan nin fiican ma aha ayagaba cid fiican ma aha ayaga heerkaas ku gaarsiiyeen cid fiican hadday yihiin way ku dhaqaalay lahaayeen way ku ixtiraami lahaayeen way ku naxariisan lahaayeen xataa ugu yaraan marka ninka waxay leeyihiin nin fiican ma aha ninka ayaga u sabab gabadha inuu meel baylaha ay ka qaato inuu meel cidle ay ka qaato nin fiican ma aha maxaad kala joogtaa hooyaday iyo habaryarahay markasta waxay doonaan in ay igu diraan ninka ooy i dhahaan ninka lacag weydiiso dahab ii iibi ku dheh ninka kuleyl tus gabadha haddii gurigeeda lagu soo bari lahay kuleylka iyo kartida iyo shaqsiyada iyo si isku difaaci lahayd mar hore isdifaaci lahayd xaqeedna way qaadan lahayd kuleyl tus balse aniga waan maqlaa waana dhaafaa hadalkooda waa maqlaa waana sii dhaafaa waayo markii aan yaraa habaryarahay ima aqoon hooyana
anoo 1 sano jiro ayay aabahay ii geysay markaan u imidna nolosha adag ayaan kala kulmay haddii aan maqlo oo aan ninkayga sida ay rabaan aan ku sameeyo isoo dhaweynayaan hadda uur baan leeyahay aniga oo ilmo u wata kuma noolaan karo gurigii aan uga tagay ciilka walaal ila tali hadda waxaan ahay reer qarsoon ma helo xaq aan ku leeyahay ninkayga waxaana sababay hooyo ahay reer qarsoon ma helo xaq aan ku leeyahay ninkayga waxaana sababay hooyaday waa dharta qisada oo igu adkayd iyo aniga oo ka cabsaday in haddii aan joogo guriga hooyo haddii aan hadal ku celiyo ama aan ka tago oo ay geeriyooto inkastay caafimaad qabtay haddana caafimaad laguma waaro haddii ay taasi dhacdo in lay ceebeyn in dadka ku caylahayo caasiyata hooyadaha ka tagtay oo xanuunsan ceebeyn dadka ehelku wax idhiba umaan geysan jirin oo lafahaygaan uga cabsan jiray balse haddaan uga tagi lahaa si kale dadku way ceebaysan lahaayeen marka waxaan iska guursaday guur magac kaliya ah si la ii dhaho waa la guursaday gurigeeda ayay joogtaa walaal waxaan ka wadaa guur magaca hadda ninka i qaba markuu doono ayuu ii yimaadaa dhaqaalena inta ugu yar ayuu isiiyaa inta ugu yar buu isiiyaa macnaha hafi kelmo inta waa kasi waaye laakiin maan dambo si fudud igu helay ila tali walaal gabadhan qisadeed aaday u dheereed waana xifdin waaye waa ku qasbanaaday inaan idin akhriyo adinkana saa u fahamtiin si aanan qisadeedana wax aan ugu soo kala tagtagin qisooyinka qaarkood muxuu ahay waa iska gaagaaban yihiin laakiin tan aaday u dheereed marka walaalahayga sharafta leh hortoo lasoo taliya gabadhan walaasheen ah dhibay ku jirtaa weligaani marka adiga aad dadkii ku dhalay iyo dadkii kula dhashay aad ka weysid naxariis iyo raxmad aad ka weysid nin islaameed ma laga yaabo inuu ka roonaado inuu ilaahay ku cabeediyo ma ahane hadda ninkan wuxuu uga faa'iideystay gabadhan inuu cidlo ka helay in ay dadkii dhalay ay ka cararayso oo dhibaato ay ku qabto dabcan markii hooyadeed ay u timid iyadoo 14 jir ah oo hooyadeedna dhibaato ay kala kulantay way u noqon lahayd aabaheedii soo korsaday laakiin waxaan ka dareemay meeshaas inaysan aabaheed wax raaxo ah aysan ku qabin ama wax raxmad ah ama wax muxuu ahay haddii ay raaxo ku qabto agtiisa way noqon lahayd oo markii hooyadeed ay dhibtay ka noqon lahayd marka gabadhan waa ujeediin lasoo taliyay insha allah waana gabar maalintii ay dhalatay ilaa hadda dhib ku jirto dil iyo muxuu ahay iyo aflagaado iyo ay habaar la iskugu daraayo marka waxaan rabnaa walaalahayga sharafta leh in aan wax ka bedelno nolosheeda maxaa yeelay talada aad siinaysiin waa muhiim talo wanaagsan haddaa siisiin muxuu ahay wax nolosheeda ka bedelo waxay noqonaysaa taladaas mid nolosheeda inta ka dhiman wax ka anfacday nolosheedina bedeshay maxaa yeelay haddaysan talo nooga baahnayn ay isku filan tahay maanta annaga waxbana ma soo weydiisan lahayn marka waxay dhahday ila soo taliya walaalayaal maxaan sameeyaa la taliya insha allah nolosheedana muxuu talo wanaagsan siiyo oo wax ka bedesho waana gabar walaasheen ilmahana marka ay yaryar yihiin haddii muxuu ahay la tusiyo jacayl iyo wanaag iyo markay wax kuu sameeyaan aad dhahdid khayr allah ku siiyo waxba kaama dhibayso inaad dhahdid khayr allah ku siiyo inaa hadal fiican aad dhahdid mararka qaarkood ilmaha waa la garaacaa waa la canaantaa macno ma lahan markay wax haleeyaan
oo muxuu ahay hal mar loo digo oo laba mar loo digo mar saddexaadka horta gacanta way gaaraysaa oo hooyo aan ilmo garaacin ma jirto hadday garaaci weysana kulle ilmahaas ilmo waxay kusoo baxaan kibir badan oo caasiyaal ah marka ilmo waa la garaacaa inta ay yaryihiin laakiin marka hore inta waa loo digaa waana laga waaniyaa qaladka laakiin dilka wuxuu imaan karaa markii loo digay in badan oo qalad ku sii socdaa markaas oo kale inta waa la canaano karaa markaasna dil ayaga lafahooda gaarayo oo laf jibinayo lama dilaayo laakiin dil xanuujinayo oo u noqdo ciqaab wixii ay sameeyaan ay uga laabtaan waa la canaantaa malahan kulligeen la soo canaani jiraan kulligeen qofaan la soo dilin ma jirto marka ilmahaagana haddii adiga dhahdid doqonaad tahay waxba ma qaban kartid meel aa ku fiican tahay malahan heblaaya kaa fiican gabadha habartaha kaa fiican gabadha dariska kaa fiican gabadha eedadaha kaa fiican niyadii ka jabaysaa ilmahana wiil ha ahaado ama gabar ha ahaato markaas lagu koriyo qof hebela kaa fiican qof hebela kaa fiican doqona tahay waxaa gashid ma jirto ilmaha waxay u kala baxayaan laba u kala baxayaan waxay u kala baxayaan cunugaas inuu noqdo cunug geesi ah oo hadalkaas la dhahayo dadka tusiyo inuusan waxa laga sheegayo ahayn oo yani bilcagsigeeda tusiyo oo kusoo baxo qof karti leh qof shaqaysto dadkana ay dhahaan qofka ma laga filayni meeshaan iyo qof niyada gashto caayada la caynayo iyo habaarka la habaarayo oo aamino waxa laga sheegayo inuu yahay inuu sadaqa waxaas uu dhaho khalaas adiga waxa adiga gashid ma jirto waxa taraysid ma lahan dadkana ku sheegeen qof ku jecel male qof ku rabta male dadka qof cunug waxa markuu gurigiisa jecel ka waayo dadkan tan wuxuu aaminaa wayba ka sii xageeyaan gurigaaga laga rabay dadka kale maxay kugu falayaan marka ilaahay laga cabsado ilmahan muxuu ahay niid laga majibiyo maxaa yeelay waxa sugaya mustaqbal waxa sugaya hadii ilaahay umri uu siiyo umri dheer sugayo reer uu dhaqan lahay muxuu ahay uu guursan lahay wiil ahaado ama gabar ahaado marka adiga aad niid ka jibisid noloshiisa u waajaha ma aqoonsanay cunugaas qof walbana way ka faa'iideysaa qof walba oo soo martay noloshiisa way kasii faa'iideysanay way ku sii danaysanay qof kasta cagtaysi marinay markaas waalidka oo la jeedaa tan gabadhan horta walaashay ah hadii aan soo noqdo kulli hadda way guursatay guri xalaal ay ku jirtaa ilaahay u barakeeyo walaad khayr qabtana Allah siiyo ninkeedana Allah u soo jeediyo nin wanaagsan Allah uga dhigo oo jecel oo naagaha uu qabo la simo oo xaqeeda siiyo oo daafaco oo garabkeeda noqdo maadaama uu ka weyn yahay uga soo baxo booskii aabaheed booskii walaalkeed booskii ninkeeda ilmaha ay dhali doontaan ilmo ilaahay khayr qabo oo ay garabsato oo baariyaal ilaahay uga dhigo ninkan aan ugu duceyn inuu noqdo nin qalbigiisa ilaahay u jilciyay oo ilaahay u soo jeediyay oo xaqeeda u gartay maadaama hadda ayada ay ka cabsanayso xaasaskiisa kale hadii ay maqlaan in gurigeedaas ku dumo oo ninkan uu furo uu yiri waa ku qarinaya hadda kuma sheegay xaasaskaygan ka baqaya muxuu ahay waxay noqonaysaa iyada ilmihii ay dhashay in ay muxuu ahay maadaama iyada kaligeed nolosha meel ay isku maareysay ay weysay hadda iyada cunug wadato dabcan qof rabta ma jirto marka ninkaas ilaahay u soo cabiidiyo iyadan reerkeeda dhab ha siisato dadka wanaagsan ha la socoto oo muxuu ay wanaageeda ka talinayo oo u naxariisanayo dadka gurigaaga kugu diraayo oo ninkaaga kugu diraayane ka leexo weliga ayaan qof lagugu dirin qaadanin talooyinka oo qaldan ninka waxaan ka qaad waa qalad maadaama ninkan adiga shalay sharuud la'aan aad guursatay maanta keen hadaa dhahdid waa igu soo jeesatay miyaa ku dhahaa dabcan meel u noqotidna ma qabtid hadda guri ayaa leedahay waad ku asturan tahay albaabkaaga wuu ku xiran yahay marka guriga ku asturno inuu ilaahay xaqaaga ka siiyana ilaahay ku kaso waxaaga iska karso guriga iska joog mustaqbalkaaga ka fikir dadka wanaagsan la soco marka insha Allah ninkan ilaahay ku soo jeediyo walaasheeda sharafta leh walaalayaal la soo taliya gabadha walaasheen u soo duceeya inuu ilaahay ninkan nin jilicsan uga dhigo oo u jilicsan xageeda naagahana ka difaaco haday dhahaan naagtan mar rabna waad furaysaa inuu difaaco oo xaqooda uu simo oo dhaho adinkan waa idin qabaya iidan waa qabaya anigana soo guursaday oo gadaal marsado Allah ka dhigo maadaama gabar ay tahay gadaal marsado waxaan ka wadaa ilmaha yaryarka markay kugu soo carraa ma aragto oo la dilaayo markii gadaal la mariyo qofkii markaas raacdeysanaya ma tumi karo insha Allah ilaahay ka soo marka inuu gadaal marsado oo qalbigiisa raxmad ilaahay u geliyo raxmadii waalidka ay ka soo weysay inuu raxmad ilaahay u geliyo naxariis ay ka hesho
dhaqaale ay ka hesho iyadana waxaan dhihi lahay gabar aad adag noqo mar daban yaa lagaa faa'iideysanin reerkaaga inaan lagugu dirin reerkaaga dhaqo talooyinka qaldanne ha qaadanin weliga ha qaadanin reerkaagan dhaqo aad adkayso waxaagana kala reereebo qof dayacan ha noqonin waxyaabaha aruurso haddii aad shaqaysan kartidna iska shaqayso muxuu ahay waqtiyada haddii ilmaha haddii aad dhasho qofka reebta ah heshidoo kaleento qof is anfacda noqo qof nafteeda anfacda noqo qof kartila noqo qof kastana muxuu ahay daruuftaada ha u sheeganin maxaa yeelay beriya lagugu caynaa gabdhaha ha u sheeganin beriya kugu caynayaan sirtaada qarso dhexdaadana xiro insha allah ummadan ilaahay hooy aaba allah kaaga dhigo ina maanta dhan kula taliyo iska rabila laakiin qisada ay u dheeraanayso marka insha allah ummada ilaahay walaalaha kaaga dhigo shaqayso kartina isku yeel dadkana waxay ku jeclaanayaan markii adiga dadka aad ma ku dhigi kari dadka inaa yeestid laakiin dadka markaadan weji siin ma aragti waa kaa dab urdayaan laakiin dadka marka adiga jilacsan tahay oo maalulba hoostooda aad joogtid oo maalulba saana la yeela aad dhehaysid waxay ku leeyihin tan cabaad badanaa ma kastay qof waxa u sheeganin qof muxuu ahay dadka ha kaa raadiyaan hadalka qof aad adag noqo qof geesiyad noqo qof talada iyo waanada laga soo doonto noqo insha allah ilaahayna ummadda ehlah kaaga dhiga xabiibatiye wax kaloon ku dhahay ma jirto asxaabteeda sharafta waxaan idinka dalbanaya ana qistaan waxaan idinku aqriyeyne sida ani ii taabatay inay idiin taabataan rabay insha allah waan rajeynaa inay adinkana idin taaban doonto gabadhana usoo naxariisan doontiin hadal wanaagsanna usoo qori doontiin insha allah marka tala anfacda usoo qora walaasheen ra'yi fiican soo siiya qisadana way igu dheeraatay fadlan haddii ay ugu cusub tihiin subscribe ii saara fiidiyowga hadduu idin cajibeyna like ii saara asxaabtiina u sheergaree insha allah si uga faa'iidaystaan waxaan kaga tagayaa sida caadadna ahayd saliga nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam allahuma salli wasallim wabaarak calaa sayidina maxamed sala allahu calayhi wasalam mac salaam asxaab sharafta leh